madaxweyne soo maray Soomaaliya Cabdiqaasin Salaad Xasan waxa uu dhashay sanadka marka uu ahaa 1941 waxa uu bartay Qur'aanka isaga oo yar kadib waxbarashadiisa waxa uu ka bilaabay magaalada Gaalkacyo. Cabdiqaasin waxa uu ku soo biiray siyaasadda isaga oo da'yar waxa uu noqday wasiirkii ugu da'da yaraa ee soo mara taariikhda Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mas'uuliyadii cirka iyo dhulku diideen abaal gud daraadeed ayaan idinka codsaday idinkuna waa ii dhiibteen. waxa uu ka soo qabtay dawladihii hore ee Soomaaliya xilal kala duwan oo u badan wasiiro sida wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka waxbarashada. Cabdiqaasin markii ay burburtay dawladii Soomaaliya waxa uu aaday dibadda, inta badan ma uusan imaan jirin dalka. waxa uu isku soo sharxay jagada madaxtinimada Soomaaliya sanadka marka uu ahaa 2000 shirkii lagu qabtay dalka Djibouti gaar ahaan magaalada Carta, taas oo ugu dambeyntii loogu magacaabay in uu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya taariikhdu marka ay ahayd 27 Agoosto sanadkii 2000 ilaa 14 Oktoobar sanadkii 2004. la soco qaybta xigta ee taariikhda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasin Salaad Xasan. waxaa diyaariyay Cabdirasaaq Maxamed Xasan Barduuro.